سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم sida aynu la wada socono waxaynu ka soo baxnay doorashooyinkii isku lamaanaa ee golayaasha wakiilada iyo golayaasha deegaanka ay loo qabsoomay 31 May taasoo aan doonayay inaan wax ka idhaahdo doorashadu way qabsantay runtii tirinteediina way dhamaatay laakiin maxaa dhacay waxa dhacay sharci darrooyin waaweyn baa dhacay waan ogeyn berbera wixii ka dhacay in laba jeer ay natiijo soo baxday waxa kale oo ogeyn gabilay wixii ka dhacay oo aan tirinta codadku aan transparent ahayn gobolada dalka oo dhanna gobol walba waxa hoos saalay duruufo gaar ah oo ay saameyn ku lahayd maaragtay doorashooyinkaasi ay saameyn ku lahaayeen waxaan doonayaa inaan hoosta ka xariiqo sharci darradii ugu weyneyd ee ka dhacday maaragtay doorashadii gobolka Maroodi Sheekh ee golaha wakiilada waxa jiray musharax ka tirsan xisbiga oo magaciisu ahaa Ilaahay naxariista janaasiye marxuum musharax Abdirashiid Axmed Guuleed oo geeriyooday 29kii bishii Afraad ama 29kii Abriil in xisbiga wicii sidii sharciga waafaqsanayd oo bedelkiisii geeyay komishanka doorashooyinka qaranka uu gudbiyay inuu musharaxaasi geeriyooday isla markaana xisbiga loogu bedelo musharax Maxamed Haruun Maxamuud oo halkiisii la geliyo haddaba maxaa dhacay taageerayaashiisii waxay maqleen geeridii marxuumkaas isla markaana waxa liiskii maalintii codaynta laga waayay ninkii aan ku bedelay oo ahaa professor Maxamed Haruun Maxamuud waxaana halkiisii ku qornaa marxuumkii dhintay adduunka lama arag ama adduunka kamay dhicin nin dhintay oo marxuuma in maaragtay loo codeeyo adduunka kamay dhicin arintaasi waxaan halkan baaq uga diraynaa maaragtay maxkamadda dastuuriga ah ee Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaan maaragtay arinta sharciga wuxuu ka qabo national lowga iyo xeerarka doorashooyinka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxay ka qabaan in marxuum loo codeeyo anaga dhibaatadu way nagu dhacday haddaanu xisbiga u cidnahay dadkii waxay maqleen taageerayaashiisa inuu marxuumkaasi geeriyooday kii kale lagu bedelayna waxay ka waayeen liis waa dhibaatada koowaad ee nagu dhacday muwaadinku wuxuu xaq u leeyahay in la doorto ama la doorto oo dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland jideeyay sidaas darteed waxaan baaq dheer halkan uga diraynaa inaan arinta la dheelsan in maaragtay lagu maxkamadda Jamhuuriyadda Soomaaliland arinta sharcigu wuxuu ka qabo iyo komishankuba inay ka soo saaraan oo la tafsiiro arrimaha noocaas oo kala ee ka dhacay maaragtay wadanka ka jira waxa kale oo aan maaragtay halkan iyo cabashooyin badan baa jira tirinta codadku inaan transparent ahayn waxaan ugu baaqaynaa maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland in dib loo tiriyo sanaaduuqdii ku dhacday maaragtay codadkii ku dhacay sanaaduuqda in dib loo tiriyo ayaan ugu baaqaynaa maaragtay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Soomaaliland intaasaan maaragtay ku soo gabagabeynayaa laakiin waxaan hoosta ka xariiqayaa waxa weeye adduunka lama arag marxuum dhintay oo loo codeeyo oo codadu soo baxaan lagu ma arag adduunka. Wassalaamu calaykum.